بسم الله الرحمن الرحيم halkan waa tim cadamiyadiya hadii aad tahay saaxiibada ku xiran waad ku mahadsan tahay hadaadan ahayn kamid noqon saaxiibada halkan sida joogtada ugu xiran waxa inta badan ka hadli doonaa wasiirkii wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland oo lagu xiray Muqdisho dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in saake uu ka baxsaday xabsigii uu kaga xirnaa magaalada Muqdisho marka hore waxaan daawan doonaa warbixin ka hadlaysa wasiirkan waa kuma marka hore aan daawana kadib waxa qadka telefoonka si toos ah ugu jira mid kamid ah taliyaasha ciidamada nabad sugidda ee maamulka Jubbaland wuxuu iga warbixin doonaa shaqiga ay qabaan ama tuunka ay ka qabaan ninkan inuu xiran yahay inuu baxsaday iyo in la dilay sida wararka qaar ay sheegayaan mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland barahooda bulshada ay ku soo qoreen ayaa ahaa inay dalbanayaan nolol iyo geeri cadashiid inay ku helaan marka hore warbixintan aan daawano kadib ayaad wareysigan oo dhameystiran daawan doontaan وكما عبد الرشيد حسن نور جنن عبد الرشيد جنن waxa uu ku dhashay duleedka degmada Doolow si gaar ah deegaanka Geedweyn ee waqooyiga gobolka Gado waxa uu ku soo barbaaray isla deegaankaas balse bilowgii 1995 isagoo da'yar ah wuxuu ku biiray ururkii al-Ittixaad ee gobolka Gado kaas oo waqtigaasi la dagaalamayay ciidamada Itoobiya ee gacanta siinayay kuwii ururka SNF ee la wareegay degmooyinka Beled Xaaw Doolow iyo Luuq ee gobolkaasi Cabdirashiid wuxuu gacan yare u ahaa Sheekh Maxamed Macalin Nuur oo waqtigaasi ahaa gudoomiye ku-xigeenkii ururka al-Ittixaad muddo uu qarsanaa laguna arag masraxa siyaasadda dalka waa uu soo hilaacay mar qura isagoo noqday gudoomiyihii degmada Doolow ee dhacda xuduudda Itoobiya bilowgii 2009 markaas oo xiriir wada shaqayn oo sal adag dhex martay isaga iyo saraakiil Itoobiyaan ah oo xuduudu ay fariisin wahayd waxa laga xusi karaa Colonel Tiqley iyo Colonel Ali saraakiishaas oo dhowr sano halkaas ka talin jiray walow qudhoodu uu saameeyay isbeddelka ka dhacay Itoobiya sanadkii hore gacan saarka uu saraakiisha Itoobiya la lahaa ayaa sabab u noqotay in ay garab ka siiyaan in gacan bira lagu qabto cid kasta oo ka hor timaada siyaasadda maamulkiisa waxayna buddig u noqotay taasi inuu lacago ku bixiyo hirgalka arintaas inta la og yahay siyaasadihiisa guracan waxay saameeyeen xildhibaan Barre Hiiraale xildhibaan Maxamuud Sayid Aadan iyo xildhibaan Xasan Deeq oo Itoobiya ay xirtay dalab isaga ka yimid awgi Cabdirashiid Janan waxa lagu eedeeyay inuu geystay tacadiyo ka dhan ah aadanaha waxa kamid ah inuu dad dilay sidoo kale inuu maxaabiis badan ku xadgudbay sida ay sheegeen hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa xusay in wasiirka amniga Jubbaland ay tahay in uu gurto miraha cadaaladda ay heleen dadkii uu dhibaatada u geystay hay'adda Amnesty International oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in Cabdirashiid Janan looga shakisan yahay inuu mas'uul ka ahaa dambiye ka dhan ah shuruucda caalamiga maamulkiisu wuxuu xoog muquunin ku hayay shacabka saddexda degmo ee Doolow Beled Xaaw iyo Luuq Ganaane dowladda Soomaaliya ayaa haddaba Janan xirtay 31 bishii 8 2019 iyadoo dowladdu ay sheegtay in loo haysto dambiye ka dhan ah aadanaha kadib muddo ay jirneed warqadiisii ogolaansho ee haddii la qabto lagu xiri karo taas oo ay soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir warkiisa la xiriira in la qabtay markiiba waxa soo dhaweeyay hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda laakiin maantadan oo ay taariikhdu ku beegan tahay 28 January 2020 isla dowladda ayaa sheegtay in Janan uu ka baxsaday goob uu ku xirnaa kadib markii uu jabiyay daaqad haddaba su'aalahan ayaa la isweydiinaya sidee buu u fakaday Janan halkee lagu hayay qof sidan dhan loola xiriirinayo xadgudub aadane inuu ku kacay sidee uga baxsan karaa gacanta dowladda yaa qaadanaya mas'uuliyadda aad buu mahadsan yahay warbixintaasi dabcan waa wada daawateen qadka telefoonka waxaa si toos ah ugu jira mid kamid ah saraakiisha nabad sugidda ee maamulka Jubbaland marka hore soo dhawow waxaan rabnaa inaan ogaano dowladda Soomaaliya maanta mid kamid ah saraakiisha booliiska ee hadashay waxay sheegtay in Cabdirashiid Janan oo u xirnaa dowladda eedeen dadka Jubbaland ka soo jeedanay ku eedeeyeen xadgudub ka dhan ah bini'aadanimada dowladda Soomaaliya ayuu waayay dambe u xirnaa oo la xukumay waxa la sheegay maanta inuu ka baxsaday xabsigii uu ku xirnaa waxyaabaha idinka aad ka ogtihiin xaqiiqda rasmiga maxay tahay walaalo sida ay sheegayso horta xogta laga helay saraakiishii gacanta ku haysay ilaa iyo hadda inta loo qaabka ah oo uga baxay Cabdirashiid Janan waa sax
waa uu ka maqan yahay hoygii uu ku xirnaa haye waxaa xusid mudan oo noola xaqiijiyay in gurigii uu deganaa daaqadiisa ay jaban tahay sidoo kale saraakiisha waxay noo sheegeen sidoo kale saraakiishu waxay noo sheegeen in daaqada jaban uu ka baxay laakiin walaalow waxaa xusid mudan oo intuu weyn ka qabnaa sababta iyo halka iyo waqtiga uu baxay waayahay tuunka idinka ay qabtaan haddii la dhahay cabdirashiid waa u baxsaday maxay tahay tuunka anaga aan qabno waxaa weeye cabdirashiid ma aha dambiile cabdirashiid wuxuu u afduuban yahay koox gaar ah cabdirashiid waa siyaasi horana sharci laguma soo xirna haatana sharci laguma xirneen tuunka aan qabno waxaa weeye maadaama oo cabdirashiid uu ahaa siyaasi u xirnaa ama u afduubanaa kooxo siyaasiyiin ah oo uu kamid yahay madaxweynaha iyo inani kulane tuunkaan ka qabno waxaa weeye cabdirashiid janan in siyaasad loo dilo ama loo daldalo dabcan waxaad sheegaysaan inaad qabtaan cabsi ah ama shaki ah in cabdirashiid la dilay dabcan sidaas ayuu hadalkaada u dhigmaa aada iyo aad sidaasoo hadalku u dhigmaa waayahay ka waran xaaladiisii waktigii idinkeedii ku dambeysay halka la sheegay inuu ku jira ma ku hubteen oo ma ku jira halkaas walaala cabdirashiid tan iyo intii la qabtay hadayo goraale mar walba la xiriirna laamaha ammaanka weliba gabadhan taliyaha ka ah booliska mar walba aan wareysana halkuu ku xiran yahay nooma sheegto laakiin maanta qoraal ay soo dhigtay waxay sheegtay in cabdirashiid janan uu baxsaday horaanna waxay noo sheegtay inaysan ogeyn cabdirashiid janan meeshuu ku xiran yahay cabdirashiid janan tuunkaan ka qabno waxaa weeye 4 maalin ka hor in laga soo qaaday xaruntii ku xirnaa oo la keenay guri gaar ah maantana lagu soo geliyey inuu baxsaday sababahaas markay isbiirsadeen kadib waxaa noo soo baxday cabdirashiid inuusan gacanta dawladana ku jirin anaguna nolol iyo geeri toona aanan ku haynin waayahay hadalkan markuu soo baxay saaki dawladdu ay sheegtay in cabdirashiid uu ka baxsaday halkii uu xabsigii uu kaga xirnaa muqdisho tallaabada ugu horreysay ee idinka aad qaadeen muxuu ahaa tallaabada ugu horreysay aan qaado waxay ahayd inaan guda galno ama raacno xogaha soo baxaya iyo halkii uu ku dambeeyey baxsashadiisa kadib walaalow noomay suurta galin cabdirashiid janan nolol iyo geeri toona sidoo kale waxaa xusid mudan laamihii ammaanka ahaa oo gacanta ku hayay waxaa noola xaqiijiyay in 4 ka mid a ilaaladiisa ilaalinaya la xiray sababa aan la garanayna ogoon waayahay madaxda qaar ama mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa barahooda bulshada waxay kusoo qorayeen cabdirashiid in la dilay ay kaliya u baahan yihiin in la helo meedkiisa ama nolol iyo geeri dawladdu ay ku sheegto idinka aragtidaas ma la qabtaan aad iyo aad waa la qabnaa aragtidaas laamaha ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya qaasatan hay'adda NISA oo ah hay'ad sirdoon waxay ugu talagashay cabdirashiid janan inay ku ridaan god dheer oo dib dambe loo arkin waxyaabaha keenay tuunka weyn ka qabno in cabdirashiid janan la dilay waxa kamid ah aad buu mahadsan yahay waxa uu ahaa mid kamid ah laamaha ammaanka ee Soomaaliya gaar ahaan maamulka Jubbaland wuxuu ka warbixinaya xaaladda wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland iyo tuunka ay ka qabaan in uu nool yahay maadaama laamaha amniga ee Soomaaliya ay sheegeen in cabdirashiid uu ka baxsaday halkii uu ka degnaa muqdisho ama halkii uu ku xirnaa waxaa kaloo la sheegay 4 kamid ah ilaaladii ku qorneed xabsiga uu ku jiray ama guriga uu ku jiray wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka Jubbaland in iyaguna la xiray maadaama kiiskan uu ka mid yahay kiisaska dadkan la rabo in xogtooda la ogaado waad mahadsantihiin daawashadiina haddii ay tahay markaad kugu horeysay halkan ka mid noqo saaxiibada sida joogtada ugu xiran si aad u heshid akhbaar ama wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waad ku mahadsantihiin daawashadiina